federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay fasaxday duulimaadkii diyaaradaha ee magaalada Doolow ee gobolka Gedo. Muddo dhowr bilood ah ayaa xayirneyd magaaladan, sidoo kale isla qeybo kale oo ka mid ah gobolka ayuu saameeyay amarka xayiraadda socdaal ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kula kacday dadka reer Gedo. Fasaxidan waa mid siyaasadeed ah. Waa dhowr cisho kadib markii shirka golaha wada-tashiga qaran ee ku soo ilaaday magaalada Muqdisho uu iclaamiyay in wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay soo joodin sharciga ka soo samayso si maamul dowlad oo rasmi ah loogu heli lahaa Jubbaland. Fariinta shirka golaha wada-tashiga qaran waxa ay ka dhigneyd inuusan wax maamul ka jirin deegaanada Jubbaland, iyo in hadda la abuuro oo ay wasaaradda arrimaha gudaha aasaaska ka soo bilowdo maamul cusub oo Jubbaland ah. Sida aan ka soo xignay ila lagu kalsoonaan karo, waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud go'aansaday inuu dhiso maamul cusub oo Jubbaland ay leedahay, oo leh caasimad ku meel gaar ah iyo dastuur cusub kuna shaqeynayo gobolka Gedo. Maamulkaas ay dowladda federaalka ee Soomaaliya doonaysaa inay degdeg aqoonsi u siiso, kadibna loo ogolaado qofka madaxda ka noqdo inuu ka soo qayb galo shirka golaha wada-tashiga qaran. Hawshan inkastoo dadka qaar ay saluugsan yihiin, haddana kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay muujiyeen in ay tahay go'aan lagu qasban yahay, maadaama ay si weyn u kala fogaadeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Madoobe. Degmooyinka gobolka Gedo waxaa gacanta ku hayo ciidamo iyo maamullo taabacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, halka degmooyinka qaarna ay joogaan ciidamo iyo maamullo raacsan Axmed Madoobe. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamkiisa waxa ay ka fakarayaan in gobolka Gedo laga qaban karo doorasho qof iyo cod ah, waana mid ka mid ah sababaha keenay in ay hadda ay qaadaan xayiraadda duulimaadka. Dhinaca kalena ay isku diyaariyaan inay maamul ay ka dhisaan gobolkaas. Shacabka gobolka Gedo faa'iido ayay u tahay in la furo duulimaadka, laakiin mid la xiriirta siyaasadda iyo dhismaha maamul buuxo oo cusub oo Jubbaland ah oo Gedo laga aasaaso waa dood weli dhiman oo aan wali ogeyn sida ay reer Gedo ay ula falgeli doonaan. Axmed Madoobe inkastoo uu ku adkaaday wejiga hore ee dagaalka isaga Xasan Sheekh, haddana lama yaqaan sida uu baxsan karo duulaan siyaasadeedkan cusub ee kaga soo socda dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba sida aragta adiga.